السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوغان waxaan idinkugu soo gudbinayaa habka indha casaanka aad ku baabi'in kartid. Indha casaanka waxaa loo yaqaan conjunctivitis oo sababta xuubka sare ee cadaanka ee dul fuulana ayaa wuxuu noqonayaa xididada markaa ku jira ayaa weynaanayo kadibna waxay sababaysaa in ay indhaha u muuqato gaduud. waxyaabaha sababa guud ahaan waxay noqon kartaa bacteria inuu sababo waxay kaloo noqon kartaa inuu sababo mataqaanaa virus iyo sidoo kale allergic iyo waxyaabo badan ay sababi karo ay kamid tahay dry eye. Dii indha gaduudkaaga wax sababa ay tahay bacteria waxyaabaha lagu garto marka laga soo tago huurka cuncunka waxa weheliyo waxay tahay fish oo markaa soo buuxinaya marka habeenkii aad subaxii soo kacid indhahaaga isku dhagayaan waa nooca bacteria marka isku aragtid waxyaabaha aadka u caawinaya waxay tahay haddii goojooyin antibiotic la siiyo kale qofka ama antibiotic u isticmaalo in ay ka yaraanayso bacteriadaas. laakiin nooca viruska ah oo viralka oo waliba aad u baahsan oo mar walba dadka ay ugu badan yihiin marka antibiotic jawaab ma bixinayso calaamadaha leedahay waxay tahay in mataqaana biyo isha biyeynayso cuncun ay leedahay. nooca viruska daarabtina ogaatid waa viruska caadiga hergebka sababa xataa marka qaar way noqon karaan waxyaabaha marka haddii nooca viruska tahay antibiotic waxba ka matalayo waxyaabaha aad u saacidaya waxay tahay cold compress oo kale inaad saartid marka qaarna daawooyinka loo qoro waxay tahay artificial tear inkastoo dhaqaatiir qaar ay u qoraan steroid laakiin steroid marka qaar waxay samaysaa daaweynteeda ay aad u dheereysaa sidaa awgeed steroid xataa marka qaar jawaab ma bixinayso oo ma fiicno sidaas awgeed ayaa marka qaar u dhib badan tahay in la controlo. markay viral tahay virus markay tahay conjunctivitis kaaga nooca sababayo aad bay u baahaysaa sidaas awgeed ayaa marka qaar loo baahan yahay in mataqaanaa gacmaha aad iska meertid ay muhiim u tahay. marka qaar waxyaabaha sababayo in guudkaaga waxay noqon karaa sida gonorrhea oo kale syphilis waa virus aad u xoog badan oo laga yaabo marka qaar xataa inay indho la'aan ay kugu ridaan sidaas awgeed ayay muhiim u tahay marka indha casaan isku aragtid oo in dhakhtarka indhaha u ordi si nooca taa u garto kadibna xilli hore ee loo daaweeyo. ha dhayalsanin sababtoo ah laba indho bas aad leedahay ka taxadar. laakiin waxa indha gaduudkaaga sababa haddii ay tahay allergy oo kale aad u adag tahay in la manage gareeyo oo qofku uu ka fogaado. mar qaar waxaa suurtoobaysa geedaha markaas banaanka baxay waxyaabo allergic inay soo deynayaan oo indhahaaga ay dabeesha ay soo qaadaysa indhaha ku dhagayaan kadib ay allergic u indhahaaga ay noqonayaan indha casaanka ay sababayaan. marka aad u adag tahay indha casaankaas haddii ay sababto allergy in aad controlshid laakiin saas ay tahay hababka u controli karto waxay tahay aan isdhihi karo in daaqadaha kale iska xirtid laakiin haddii ay yaanyuuro kale ama bisad ay gurigaaga ay soo galayso ama xayawaano laftirkeed way soo qaadi karaan waxyaabahaas ee hawada ku jiro allergic jirkaaga ku ah. nooca allergic da isku aragtid waxaa kaloo jiro goojooyin loo isticmaalo oo la yiraahdo antihistamine oo markaas waxyaabahaas allergic kugu ah ka yareynayo. waxyaabaha aad ugu hortagi kartid indha casaanka waxay tahay in mataqaanaa aad la wadaag shukumaanka oo kale oo aad ku meeratid in qof aan la wadaagin barkintaada laftirkeeda in mataqaanaa subax walba ama aad u dhaqdid oo marka qaar ayaga laftirkooda ayaa ku keeni kara waxyaabaha indha casaanka ku keeni kara. ugu dambeyntii su'aasha maanta arrimaha soo sheegay midkee aad ku saaciday haddii indha casaan aad qabtid oo indha gaduudka ah midkee aad u sababa ma bacteria ma virusa ma allergiga qaybta commentiga noo wadaag.